waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan war wixii caawa dadweynaha naga soo gaadhay. Laba weerar oo isqarxin ah ayaa lagu qaaday jaamacadda Islaamiga ah ee caalamiga ah oo ku taala magaalada Islamabad ee dalkaasi Pakistan. Waxaana lagu soo warramayaa in ay ugu yaraan 4 ruux ay ku dhinteen weerarka 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Labada qarax midkood ayaa ka dhacay makhaayad ay wax ka cunaan gabdhaha jaamacadda dhigta, qarax kalena wuxuu ka dhacay kuliyadda shareecadda. Arday badan oo Soomaali ah ayaa lagu soo warramayaa in ay wax ka bartaan jaamacaddaas. Cabdi Axmed Digaale oo madax u ah ardayda dhigata jaamacadda Islaamiga ee magaalada Islamabad ayaa laanta af Soomaaliga ee BBC-da u sheegay in aanay weli hayn arday Soomaali ah oo qaraxyadaas wax ku noqotay. Dalka Pakistan ayaa 2 sano ee ugu dambeeyay ay la soo darseen qaraxyo isdaba joog ah kuwaas oo ay fulinayaan dad bam isku soo xidhay ama ismiidaamiyey. Waxaana dalkaasi Pakistan 12 maalmood ee ugu dambeeyay ku qorwaayay qaraxyo kala duwan dad gaadhaya ilaa 170 qof. Dagaalyahanada Talibaanka ee koonfurta Waziristan ee dalka Pakistan ayaa bilaabay weeraro argoosi ah oo ay ku qaadeen goobo badan oo ay leedahay dowladda dalka Pakistan. Waxaana u suurta gashay dhowaanta in ay xoog ku galaan dhismo ay leeyihiin taliska sare ee militariga dalkaasi, halkaas oo ay ku laayeen Talibaanku dhow sarkaal. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa daboolka ka qaaday siyaasadda xukuumaddiisa ee ku aadan dalkaasi Suudaan. Waxaanu sheegay in uu wada hadal la gelayo mas'uuliyiinta Khartoum, inkasta oo uu digniin kulul u soo jeediyey mas'uuliyiinta dalkaasi Suudaan. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sheegay haddii la joojin waayo xasuuqa iyo dagaalada gobolka Darfur, dalkiisa iyo caalamkuba ay tallaabo adag ka qaadan doonaan hogaamiyaasha dalka Suudaan. Barack Obama ayaa hoosta ka xariiqay sida lagama maarmaanka ay u tahay in la soo afjaro xadgudubyada iyo xasuuqa ka dhacaya gobolka Darfur ee galbeedka dalkaasi. Waxaanu intaas ku daray in colaadda ka jirta dalka Suudaan aanay aafaynayn oo keliya 40 milyan oo Suudaaniyiin ah, hase yeeshee ay halis u tahay dhammaan gobolka Geeska Afrika oo sidiisa kale u gubanaya. Tan iyo sannadkii 2003 ayay qaramada midoobay ku qiyaastaa in ay ku dhinteen gobolka Darfur oo keliya 300,000 oo qof dad gaadhaya. Gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa mudanayaasha golaha wakiilada ugu baaqay in maalinta Sabtida ee 24 bishan ay isugu yimaadaan fadhi degdeg ah oo lagu ansixinayo xubnaha cusub ee komishinka doorashooyinka. Gudoomiyuhu waxa uu sidatan ka sheegay shir jaraa'id oo uu shalay ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa, kaas oo uu ku soo bandhigay magacyada xubnaha cusub ee loo soo gudbiyey. Gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa xaqiijiyey in ay soo gaadhay ama loo soo gudbiyey waraaq uu ka helay madaxtooyada Somaliland, taas oo ay ku xusan yihiin 7 xubnood ee cusub ee komishinka doorashooyinka qaranka. Waxaanu saxaafadda u soo bandhigay magacyada xubnaha cusub oo kala ah 3 xubnood ee madaxweynuhu soo xulay. Waxa ay kala yihiin Maxamed Axmed Xirsi Geele, Yuusuf Xaaji Maxamed iyo Faarax Abiib Aadan. 2 xubnood oo ay golaha wakiiladu soo xuleen, Saafi Shariif Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil Dixood. iyo ugu dambayn 2 xubnood ee xisbiyada mucaaridku ay soo xuleen, Cabdifataax Ibraahim Xasan oo ka tirsan xisbiga UCID iyo Cali Khadar Xasan Cismaan. Gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Ciro ayaa sheegay in maalinta Sabtida ah uu goluhu isugu imaan doono fadhi aan caadi ahayn. Inta ka horeysana ay xubnaha cusub loo gudbin doono guddiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada si ay u qiimeeyaan baaritaanna ugu sii sameeyaan ka hor inta aan la horgeyn fadhiga golaha. Dhankiisana gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Jabaan ay ka mid noqotay dalalka tirada yar ee caawimada siiya, isla markaana ballan qaaday in ay Somaliland siiso lacag dhan 4 milyan oo dollarka Mareykanka, taasoo lagu horumarinayo dhinaca waxbarashada. Faysal Cali oo shir jaraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa kadib markii uu ka soo laabtay socdaal muddo 7 ah
oo uu ugu maqnaa dalalka Kenya iyo Ethiopia, halkaas oo uu sheegay in uu kula kulmay ilaa 10 safiir iyo 3 ka mid ah hay-adaha caalamiga ah, kuwaas oo uu sheegay in ay niyad wanaag u muujiyeen. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucid Faysal Cali Waraabe ayaa intaas ku daray in wax badan laga sugayo mas'uuliyiinta siyaasadeed ee Somaliland, waxaanu tilmaamay in doorasho madax bannaan oo la qabtaa ay keeni karto dowlad tayo leh iyo horumarka Somaliland. magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa lagu soo warramayaa in la soo gabagabayn doono shirweyne lagaga hadlayo barakaca iyo qaxootiga Afrika, shirkaas oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah madaxda dalalka Afrika, waxaanay noqotay qaaradda Afrika ta adduunka maanta ugu qaxootiga iyo barakaca badan, kuwaas oo dalalkooda uga soo carara dagaallo iyo abaaro isdaba jooga awgood. ra-iisul wasaaraha dowladda ku-meelgaadhka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa halkaas ka jeedin doona warbixin dheer oo uu kaga hadlayo dhibaatada qaxootiga Soomaaliya iyo sidii wax loogu qaban lahaa, isagoo u soo bandhigi doona madaxda Afrika heerka barakaca iyo dhibaatada qaxootiga Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin. waxaa kaloo khudbad dheer ka jeedin doona shirkaasi magaalada Kampala ee lagaga hadlayo barakaca xoogga leh ee qaaradda Afrika hogaamiyaha jamaahiriyadda Liibiya Korneel Muammar Gaddafi. halka uu warkaasi idinka soo gaarayaana waa hoyga Soomaalida Holan oo aad si toos ah ugala socotaan FM-ta Amsterdam 99.4 iyo barta internetka ee ciwaankeygu yahay dalmar.org, halkaas ood si toos ah uga dhegaysan kartaan. warkaygii caawa dhegaystayaal intaas ayuu inoogu egyahay. raadiyo Dalmar iyo barnaamijyadiisina halkoogii ayay inooga sii socon doonaan.